Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalka Hikachi. Maanta waxa aynu soo gudbinaynaa cashar la yiraahdo quotes. Quotes maxaa laga wadaa? Xigashooyin. Casharkan waxaa naga soo codsaday mid ka mid ah ardada Hikachi. Aad iyo aad baa ugu mahadcelinaynaa. Casharkana maanta wuxuu noqon doonaa codsigiinaas. cashirka aan guda galan xigashada ugu horeysa waxa la yiraahdaa ninkan waxa la yiraahdaa nin Rumi baa la yiraahdaa waa nin muslim ah waa nin sida yani dadku ay sheegaan taariikhyahanadu yiraahdaan waa Turkish laakiinse waa la isku haystaa xogaa ma rabo inaan taariikh aan ka hadlo laakiinse ujeedkaygu waxa weeye inaan ninkan iftiimiyo cid uu yahay wuxuu leeyahay yesterday shalay I was clever waxaan ahaa qof xariifa baan ahaa shalay so I wanted to change the world waxaan rabay sidaa daraadeed inaan dunida bedelo today maanta I am wise maanta caqli ayaan leeyahay garaad ayaan leeyahay wax garad baan ahay so sidaa daraadeed I'm changing myself waxa aan bedelayaa naftayda waxaa jira inta badan taariikh ama oraah la isla dhex wadaago oo tiraahda qofka markii la dhiso shakhsiyan ahaan markii loo dhiso ayaa dunidu dhisanta waa oraah runtii laga soo guuriyay aabba iyo gabadh ilmihiisa yarka ahaa runtii sida la sheego culimada Soomaaliyeed xataa way sheegaan dhiirigelin ahaan baana loo sheegaa marka waa soo baaray ka qisada waa wiil waa ilmo yar oo aabihiis uu ku mashquulanayo khariirad la jeexjeexay kadibna uu cunugu wuxuu leeyahay isku soo aadi wadamada cunugan taariikh ma yaqaan wax kale ma yaqaan odaygu wuxuu ugu dhiibay inuu isaga mashquuliyo kadibna bogga kale ee taariikhda waxaa kaga qornaa bogga mataqaana ay kaga qoran tahay maapku maahana dhanka kale waxaa kaga sawirnaa qof baa kaga sawirnaa sidaa daraadeed cunugii wuxuu arkay qofkii kadibna qofkii isku geeyay kadibna qaaradii oo dhan baa isku geysantay marka halkaas oraah laga sameeyay waxaa la yidhi markii qof ama waxa weeye bini aadamka la dhiso ayaa caalamkun dhismaya sidaa daraadeed wuxuu leeyahay yesterday I was clever so I wanted to change the world today I am wise so I am changing myself Rumi baa iskale shalay waxaan ahaa qof xariifa waxaana rabay inaan dunida bedelo maanta waxaan ahay qof caqli leh waxaana bedelayaa naftayda quote-ka ama xigashada labaad waxaa laga soo guriyaa nin yiraahdo Thomas wuxuu leeyahay many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up wuxuu leeyahay many in badan of life's failures oo ka mid ah nolosha guuldarrooyinkeeda macnaha nolosha guuldarrada ay macnaha maanta ku jirto in badan oo ka mid ah waxaa sabab u ah waxa weeye are people dad weeye who did not realize kuwaasoon xaqiiqsan kuwaasoon aaminin kuwaasoon rumaysan okay how close they were to success sida ay ugu dhawaayeen guusha when they gave up markii ay isdhiibeen ama waxa weeye ay iska daayeen macnaha yani markaas ay gave up ka sameeyeen waxa weeye qofku inuu isdhiib markaan isdhiibid waxa weeye qofku inuu wax walba uu rabay uu ka takhaluso uu yiraahdo iga daa ma wadayo marka wuxuu leeyahay many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up xigashada saddexaad wuxuu leeyahay curiosity about life in all of its aspects I think is still the secret of a great creative people Leo Burnett wuxuu leeyahay curiosity about life in all of its aspects curiosity waxaa laga wadaa qofku jamashada ama rabitaanka uu u qabo inuu wax ogaado baa curiosity leeyahay marka wuxuu leeyahay curiosity about life macnaha yani rabitaanka aan rabo inaan nolosha ka ogaado in all of its aspects meel walba nooc walba yani meel walba oo noloshu gashay si aan macnaha rabitaanka aan u qabo inaan wax uga ogaado I think waxaan u maleynayaa is still ilaa iyo hadda the secret waxa weeye ilaa iyo hadda the secret sirta
of great creative people. dad wax soo saar leh ama hal abuur leh oo waaweyn sirtooda weeyaa u malanaya. macnaha wuxuu leeyahay curiosity in nolosha meel walba wax laga ogaado, businesskii wax laga ogaado, waxbarashadii wax laga ogaado, siyaasaddii wax laga ogaado, diintii wax laga ogaado, adiga kor iyo hoosba in nolosha meel walba wax laga ogaado. waxaan u malaynayaa buu yidhi ilaa maanta ilaa hadda waa sirta dad badan, dad waaweyn oo macnaha dee darajo fiican gaaray oo haddana hal abuur lahaa. waa sirtaasaan u malaynaya. marka sidaa daraaddeed qofku in waxyaalo badan meel ka ogaado waa wax wanaagsan. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dhowaan dhibaatada ay leedahay inaan wax walbana ogaatid, sababtoo ah taa laftigeedu waxay noqon doontaa mushkilad bay noqon doontaa. Rumi wuxuu leeyahay haddana wuu nagu soo laabtay be empty of worrying, ka marnow walwalka. be empty, ka marnow of worrying walwalka. think of, ka fakar, who created thought, kan abuuray fakarka. thought waa fakarka. marka waxaa leeyahay be empty of worrying, ka marnow walwalka, walbahaarka, walaaca. think of who created thought, ka fakar kan abuuray fakarka. iyo wax isweydiinta naftu inay isla hadasho. quote-ka ama xigashada shanaad waxay leedahay the universe is still Rumi baa tanale. the universe is not outside of you. dunidu ama caalamku ma ku jiro, dibaddaada ma yaallo, oo waxaan kuu muuqda ee dibadda ka muuqda ma ahan. look inside yourself, fiiri naftaada gudaheeda fiiri, macnaha naftaada hoos u fiiri weye oo dib ugu noqo. everything that you want, wax walba oo aad doonaysid, you already are, horay baabad u ahayd. weli haddaba waa tahay oo horay baabad u ahayd. the universe is not outside of you. look inside yourself, everything that you want, you already are. Rumi baa iskale. dunidu ama caalamku ma ahan waxa dibadda kaaga muuqda ee dibaddaas jira. waxaad fiirisaa naftaada gudaheeda ama naftaada hoos u fiiri, wax walba oo aad doonaysid horay ayaad u ahayd. quote-ka lixaad waana kan ugu dambeeye, waxa uu ka kooban yahay 5 qaybood. sida gabaygiiba u dhacaya, su-aalaha la isweydiinaya, waxa uuna Rumi kaga jawaabaya su-aalo aad iyo aad nolosheena muhiim ugu ah. wuxuu leeyahay su-aasha koowaad, what is poison? poison waa maxay? sun weeye. suntu waa maxay buu leeyahay. anything which is more than our necessity is poison. wax walba, anything, wax walba, which is more than, kaas oo ka badan, our necessity, baahideena asaasiga, is poison, waa sun. it may be waxay noqon kartaa power. it may be maxay noqon kartaa? it may be waxay noqon kartaa power, awood, ama mid yacni xileed ha ahaato ama mid shakhsiyan ha ahaatee. wealth, hanti bay noqon kartaa. hunger, gaajo bay noqon kartaa. ego, nafta oo waxa weeye isla weynaatid, kibir iyo waxaasoo ku galo oo aad waxa weeye gebigaagaba si kale iska dhigtid ayay noqon kartaa. greed waxay noqon kartaa cirweyni. cirweynidu meel walba way gashaa. waxay gashaa xilkii bay gashaa, waxay gashaa cuntadii bay gashaa, waxay gashaa noloshii, meel walbay geli kartaa cirweynidu. laziness, caajis. caajis waa wax waxaan u baahannahay maahan. love, jacaylka. ambition, hamiyada iyo himilooyinka qofku uu leeyahay. hate, nacaybka, or anything, ama wax walba ama wax kasta. what is fear? su-aasha labaad, waa maxay cabsidu? fear waa maxay? waa cabsida. sidoo kale fear waxaan soo dhignaa iyada ah afraid, waa ka cabsasho. tanna waa maxay? fear waa cabsidii lafteeda. non acceptance, aqbalid la-aanta. of uncertainty, uncertainty, waxa aan xaqiiqda ahayn, waxa aadan ka warqabeen inay run yihiin iyo inay been yihiin, ma ogid, xog kama haysid. inaad mataqaana aqbali weydid waaye baa cabsi la yidhaahdaa. sababta horey baan kuu soo sheegay 99% waxa laga cabsadaa waa waxaan jirin. if we accept, haddii aan aqbalno that uncertainty, haddii aan aqbalno waxyaabahaas aan ogeyn, xogna ka hayn waxa ay yihiin, haddii aan aqbalno, it becomes adventure, waxay noqotaa biimayn. biimayn waa soo dhigana sax. okay, what's envy? waa maxay xaasidnimo ama xaasidnimadu waa maxay?
non acceptance of good in others inaad aqbali weydid wanaaga. Good waa wanaaga, in others dadka kale wanaagooda in aqbali weydid baa xaasnimadeeda. If we accepted that good wanaaga dadka kale haddii aan aqbalno, it becomes inspiration, waxay noqonaysaa dhiirigelin. Sababtoo ah qofka kale wuxuu sameeyey what somebody has already done, you can easily do it. wax qof hore sameeyey adiguna si sahlan baad u samayn kartaa. What's anger? waa maxay cabsi? Sorry, what's anger? waa maxay xanaaq? Anger waa xanaaq. hore waa soo baranay baan filayaa, angry baan soo baranay oo ah mataqaana xanaaqsan, laakiinse hadda waa xanaaqi. Non acceptance, aqbalid la'aanta of things, ashyaada which are beyond our control, kuwaasoo ka dhaafay macnaha ama ka dibadda ka ah awooddeena. Control waxa la yidhahdaa waxa aanu maamuli karno, macnaha maamulideena iyo mataqaana yacni awooddeena aan dhihi karaa kusoo koobi karaa. Control our control, beyond our control waa awooddeena, waxa awooddeena ka baxsan inaan aqbali weyno. If we accept that, it becomes tolerance. waxyaalo badan baa kugu dhacaya, qadarkii baa soo socda. maalmuhu waxay ku sidaan ma ogid, waxa berri la kulmi doonta ma ogid, waxa weeye shalay kugu dhacay xataa maada ogeyn, laakiinse marka u dulqaadatay waad ka gudubtay. marka haddii aa waxyaabaha kaa xanaajinaya yacni gebigaagaba ku qasaya, noloshaada dhan qasaya, haddaa u dulqaadatid yaa waa ka gudbasaa, si sahlan baad uga gudbasaa. So what is hatred? waa maxay nacayb? Non acceptance of a person as he is, inaad qofka ku aqbali weydo sida uu yahay baa la yidhaahdaa nacayb. If we accept a person unconditionally, haddii aanu dadka ama qofka aqbalno innaga oon shuruud ku xirin, ma il buu la'yahay, ma dhag buu la'yahay, ma lug buu go-an yahay, ma fool xun yahay, ma qurux badan yahay, haddii aan aqbalno, if we accept a person unconditionally, haddii aan qofka aqbalno shardi la'aan, shuruud la'aan, oo aan oran ka fiirin meelo kala duwan, it becomes love, waxay noqotaa jacayl bay noqotaa. sidaa daraaddeed qofka marka aad jeceshahay wax walba uu kugu sameeyo iyo wax walba oo dadka kale ka sheegayaan iyo wax walba uu yahay ma arki kadib, indhaha kaa xiran. Love is blind baa la yidhahdaa. jacaylku waa indhala'yahay. jacaylku waa indhala'yahay, jacayl indha ma leh, soomaalida ku mahmahda. sidaa daraaddeed sababta oo qofka xumaantiisa iyo samaantiisa mar walba waxaa kuu muuqanaya samaantiisa, xumaantiisa marna ma arkis. xataa haddii lagu soo hadal qaado lagaga sheekeeyo kuma geli kadho, sababta waxaa ka aaminsan tahay ayaa ka awood badan. sidaa daraaddeed waxaa la yidhahdaa wax aad looma jeclaado, waxna aad looma naco, sababta ma ogid inaad jeclaan doontid ama nabcaan doontid. sidaa daraaddeed weligaa noloshaada waxaa lagu balansi gareeyaa caqliga iyo qalbiga. waxaa la yidhahdaa haddaa wax jeclaanaysid caqligaaga lagama tago, sii qaado. sidaa daraaddeed wuxuu kaa anfacayaa inaad go'aamo rasmi ah noloshaada ka gaartid, oo aad si fiican intaa u fakartid markii aad qalbigaaga ku kaxeeyo aad tirahdid no, this is not good, kani ma wanaagsan, no, this is not what I want, kani ma aan waxaan doonayo, no, inaad tirahdid maya, ma rabo kan, saan ma aqbali karo, dulli ma aqbali karo. dee qofku waa kugu ciyaaraya moogta markaa dadka bini'aadanka layskuma aaminay. war intaasna kusoo gabagabeynaya hadalka waa inu ku badiyey. waxaan rajaynayaa inaa waxyaalihiina codsiga ah hoos kusoo qortaan, hadhow oo u baahantiin si aan usoo gudbino. maanta cashirkan intaasu ku egayay. waxaana ka codsanaya haddaad ku cusub tahayna inaa waxa weeye subscribe sad, haddaa already noola joogtidna waxaan ku leenahay walaal aad baa u mahadsan tahay. thambi waxa weeye soolka ku xaji, sidoo kale share ku sameey. aad baa u mahadsan tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi